Bismillahirrahmanirrahiim. Halkan waa xanta wararka haddii aad ku cusub tahay fadlan ku biiro ka mid noqo daawadayaasha ku xiran si aad u hesho warar warbixino iyo dhacdooyin waxyaabahan falanqeyntii faaqidadan idinkugu soo gudbin doona haddii la weere uu qadar daawade waxaa ka mid noqon doona oo aanu barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa qarax ismiidaamin ayaa lagu qaaday hodheel ku yaala magaalada Kismaayo ee xarunta markaasi dowlad goboleedkaasi Jubbaland ku shaqeyso waxaan soo gudbin doonaa qaraxaasi hoteelka ka dhacay rasaas laga maqlayo iyo xubno markaasi ka dhex dagaalamaya hoteelku waxaan idin soo gudbin doonaa warbixin iyo dhacdo arrinta ku gadaaman waanu barnaamijkan ku falanqeyn doono iyo ciidamada dowladda oo gacanta ku dhigay gaari dameer laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa waxaan idin soo gudbin doonaa xogo iyo dhacdo ku gadaaman arrimahaasi oo aanu barnaamijkan ku soo gudbin doono kuna falanqeyn doono iyo xaaladii ugu dambeeyay masaajid Cali Gaduud iyo diyuuradaha Turkiga oo si toos u soo galay dagaalkaasi qodobada iyo kuwa kale ayaa daawa doontaan soo dhawaada ku biira ka mid noqda daawadayaasha iyo saaxiibada sida tooska ah halkan inoogu xiranow qarax ayaa ka dhacay magaalada Kismaayo rasaas ayaa la maqlayaa daawade siday sheegayaan wararku waxaa markaasi magaalada Kismaayo ee xarunta Jubbada Hoose ka dhacay qarax kaas oo lagu weeraray hotel ku yaala warar kala duwan ayaana ka soo baxay weerarkaasi ku bilowday qaraxyada xooggan oo goordhow ka dhacay gudaha magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka u ah dowlad goboleedka Jubbaland weerarka ayaa waxaa lagu waramayaa in lagu qaaday hoteelka Tawakal oo ku yaala bartamaha magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ilowrad lagu kalsoon yahay ayaa inoo sheegaya in weerarka loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyo waxyaabaha qarxa waxaana kadib hoteelka gudaha u galay rag hubeysan xaaladda ayaa haatan aad u kacsan waxaana la soo warinayaa in weli rasaas xooggan laga maqlayo gudaha hoteelka la weeraray dhismaha la weeraray ayaa ku yaala meel aan ka fogeen hoteelka caanka ah ee X Cascasey oo horey al-shabaab 2019kii u weerareen ama weerar xooggan ay markaasi uga geysteen haddaba qaraxan ayaa markii uu dhacay kadib gudaha rasaas laga maqlayaa iyada oo xogo iyo dhacdooyin kala duwan bay ka soo baxayaan qaraxaasi oo xaafadaha magaalada Kismaayo intii badan laga maqlay dad ku dhow goobta qarax uu ka dhacay ayaa inoo sheegaya in qarax uu yahay gaari laga soo buuxiyo waxyaabaha qarxa oo lagu weeraray hoteelkaasi Tawakal warar kale ayaa sheegaya in rag hubeysan ay gudaha u galeen hoteelka halkaas oo laga maqlay rasaas xooggan oo ka dhexdhacaysa gudaha hoteelka oo dad mas'uuliyiin ay degan yihiin ciidamo fara badan oo ka tirsan kuwa maamulka Jubbaland ayaa la dhigay dhammaan wadooyinka soo gala hoteelka Tawakal ee magaalada Kismaayo waxaana la soo warinayaa inay jiraan khasaare dhimasho iyo dhaawac ah oo ka dhashay weerarkaasi dhinaca kale Beledweyne ama gobolkaasi Hiiraan waxaa gacanta ciidamada dowladda ku dhigeen gaari dameer qaraxyo lagu soo raray wararka ka imaanaya magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in ciidanka dowladda ay fashiliyeen gaari dameer lagu soo raray waxyaabaha qarxa ka oo la doonayay in weerar qorsheysan lagu geysto gaari dameerkan qaraxyada lagu soo raray ayaa xalay la qabtay ama lagu qabtay duleedka magaalada Beledweyne waxaana gaarigan la sheegay inay la socdeen rag hubeysan oo ka tirsanaa dagaalyahanada al-shabaab saraakiisha ciidanka dowladda ee ku sugan Beledweyne ayaa sheegay inay heleen xogta qaraxan lagu soo raray gaari dameerka waxayna sheegeen in ciidamada fashiliyeen qaraxaasi ka hor inta aan la gaarsiinin bartilmaameedkii loo waday warar soo baxay ayaa sheegaya in gaarigan qorshuhu ahaa in lagu weeraro saldhig ciidanka dowladdu ku leeyihiin deegaanka Baardheere oo magaalada Beledweyne koonfur ka xiga qiyaastii 20 kiiloomitir ciidamada dowladdu ayaa warar ku sheegayaan inay ku guuldareysteen inay gacanta ku dhigaan raggii waday gaari dameerka qaraxyada lagu soo xiray waxaana la sheegay in raggan oo hubeysnaa ay la dagaalameen ciidanka dowladda horeyna markaasi ay u baxsadeen waa hagaag daawadayaal saaxiibayaal masaajid Cali Gaduud ayaan eegi doonaa iyo xaaladii ugu dambeeyay ee ku gadaaman dirirta ama dagaalka halka ka taagan afyeenka maamulka Hirshabelle Daawud Xaaji Cirro ayaa sheegaya in ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya ee howlgalo ka dhan al-shabaab ka wadaan deegaanka masaajid Cali Gaduud oo dagaal xooggan uu ka dhacay afyeenka waxa uu markaasi sheegayaa in ciidamadu ku sugan yihiin qaybo ka mid ah deegaanka masaajid Cali Gaduud qaybta kalena diyaarado dagaal ay markaasi duqeeyeen wuxuu hadalkiisa intaa ku daray in ciidamada kala duwan ay wadaan howlgalo xooggan isla markaana saacadaha soo socda ay si buuxda ula wareegi doonaan
gacan ku haynta deegaanka masaajid cali gaduud iyo deegaanada ku dhow si kasta oo xaaladda noqoto. diyaaradaha dagaalka ee Turkiga ayaa haddaba si toos u soo galaya dagaalkan, kuwaasi oo iyagu markaasi sawirro qaadaya kadibna duqeymo fulinaya. wararka ka imaanaya gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegaya in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Turkiga ay duqeyn ka fuliyeen deegaanka masaajid cali gaduud oo shalayto dagaal qaraar ku dhex maray ciidanka dowladda iyo Al-Shabaab. siday sheegeen saraakiisha ciidanka xoogga dalka ku sugan jiidda dagaalku, duqeynta ayaa haleeshay bartilmaameedkii, waxayna xuseen in lagu dilay xubno ka tirsan kooxda xiriirka la Al-Qaacida ee Al-Shabaab, taasoo ciidankii xooggan iskugu keentay deegaanka. ciidanka dowladda iyo ciidamada deegaanka oo shalay gudaha u galay masaajid cali gaduud ayaa isla shalay dib ugu soo baxay kadib dagaalo qaraar oo ka dhacay halkaasi. waxaan lagu soo warinayaa inuu hadda socdo abaabul xooggan oo labada dhinac ah. askar iyo shacab ku soo dhaawacmay dagaalkii shalay ayaa xalal la keenay Muqdisho. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale ayaana dhaawacyada ku booqday isbitaalada isagoo u rajeeyay caafimaad. dhawaan wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Axmed Macalin Vega ayaa xaqiijiyay in dagaalka cirka ay ka dhanka Al-Shabaab ay ku soo biireen diyaaradaha Turkiga oo iskugu jira kuwa sirdoon iyo kuwa duqeyn intaba. dowladda Turkiga ayaa ku soo biirtay dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. hawada ayay naga caawin doonaan. diyaaradaha Turkigu waa laba nuuc, kuwa sirdoon oo xogta raadinaya iyo nuuc duqeyn, ayuu xilligaasi yiri wasiir Fiqi. ciidanka dowladda iyo dadka deegaanka ee ka dagaalamaya Shabeellada Dhexe ayaa ku wajahan degmada Aadan Yabaal oo muddo dheer ay ka ariminayeen kooxda Al-Shabaab, waxaana maalmihii la soo dhaafay ciidan xooggan ku qulqulayeen degmadaasi Cadalle. si kasta oo xaaladda noqoto, dhaqdhaqaaqyada ka socda dhinaca iyo Cadalle iyo markaasi ilaa lagu doonayo in lagu qabsado Aadan Yabaal ayaa ah kuwa iyagu markaasi si weyn u jiitamaya dhowrkii toddobaad ee aynu soo dhaafnay. weeraradan ayaa markaasi bilowday in ay soo galaan ciidankii Cadalle ka gadaal markii xildhibaan Xaadowle uu dhaqdhaqaaq ka bilaabay weerar dhinaca iyo tuulooyinka ku hareeraysan degmada Balcad ee gobolkaasi Shabeellada Dhexe, isaga oo dagaalo ku qabsaday ilaa iyo tuulooyin dhowr ah, kuwaasi oo uu kala wareegay ururkaasi Al-Shabaab. xildhibaanku isaga ayaa markaasi ahaa mid dagaajinaya dhaqdhaqaagan oo furimaha hore taagnaa ama joogay isagoo sita dariska ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. taasi waxay keentay in xubno kale oo saraakiil ah iyo ciidamadu kuwa beesha Mudulood ahba ay markaasi iyagu soo galaan dhinaca iyo dagaalka, sidoo kalena dhinaca Aadan Yabaal ay ka soo dhaqaaqaan. si kasta oo xaaladda noqoto, dhaqdhaqaaqyadaas ayaa sidoo kale aad u sii xoogaystay iyadoo ay socdaan xogo kale oo ku gadaamaan isla dhaqdhaqaaqadahaasi oo iyagu iminka la doonayo in masaajid cali gaduud marka la qabto kadib loo sii gudbo dhinaca iyo Aadan Yabaal ilaa iyo Ceeleerna dhinaca laga galo ama laga aado. si kasta oo xaaladda noqoto, waxaa markaasi sidoo kale taagan ama jira xogahaasi oo iyagu markaasi iminka la warinayo in xagga cirka ay diyaaradaha Turkigu ay markaasi ka qaadayaan ama ka geysanayaan. kulsi horeysay oo xalayto ayaa dhaawacyada ciidankii ku dhaawacmay dagaalkaasi shalayto dhacay ilaa iyo maqribkii ama habeenkii fiidkii hore uu noqday mid markaasi iyagu lagu soo qaaday isbitaalada magaalada caasimadda ee Muqdisho, gaar ahaan kuwa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo sidoo kale isbitaalada kale, kuwaasi oo iyagu markaasi la keenay dhaawacyada kuwooda markaasi ku soo dhacma dagaalka. si kasta oo xaaladda noqoto, diyaaradaha kumaatiga u kaca ayaa sidoo kale ka qayb qaadanayay badbaadinta iyo baxnaaninta ciidankaasi, iyaga oo markaasi ka soo qaadaya furimaha hore iyo jiidda hore ee dagaalku. xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa doonaya in markaasi Al-Shabaab laga saaro guud ahaan dalka sanadkan aynu ku jirno, waa muddo 1 sano ah, taasi oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku riixayo dhaqdhaqaaqyo markaasi ku gadaaman mashaariicyo horumarineed, kuwaasi oo markaasi muhiim u ah in marka hore amni loo helo si guud dalka. halkan waa xanta wararka, waxaan ku dhaafnaa sida ay nabadiina amaan Allah. fadlan ku biir ka mid noqo daawadayaasha saaxiibada sida tooska ugu xiran halkan.